لم يذلها وحليها تابعية وحليها وحيد جبدة وحنو جورين لها نين هرت أيدا إلهي أو عبسنايا أيدا كما عبسنايا إلهي يدا أو عبسنايا وحسلي جبنا هذا دون مؤجيستين رب العزة وعقابه جبنا سوحي هدو جعل هدو كرر هذه النقطة ويفعل في عنو سميسو أحبها وجعلنا أما هدو كرر هذه النقطة مذلينايو marka waxaan rabnaa inaan fariina inaan dirno guur qarsoodi ma aha intaas ma misal dhahnaa gabdhaha iyo wiilasha hadda hoos u xiriirayana ma kala ceyrinayo laakiin waxa kor soo qaada qodobka labaad waxa loo yaqaano madam macallin waxaan ka yiraahdaa wadaadka ciyaar suuqa muxuu ahaa waxa loo yaqaan aniga cariban ku hadlaa si aan uga badbaado waxaan dhahaa al mahabba zaifa waan ku jeclaaday beenta waan ku jeclaadayaa beenta waxaan horta goorma waxa waaye hadda dhaqankeenu wuxuu isu bedelay wiil baa gabar iyadoo wada maraysa arkay inkaas wiil ku jeclahay waxay inay weydiiso tiraad maxay u jeceshahay socodkayga ka heshaa socodkayga hadaan xogaa hilib leeyahay waa caatoobi doonaa hadaan yar dheerahay intaan uur yeeshaan hoos isugu soo gaaban doonaa hadaan yar cadahay madowga ma u gafay anaa madowya raalli haadaya waa madowaan doonaa haddaad dharkaygu qurux badan yahay carruurta ku ciyaari doonto uu iga wasakheeyo doonaa haddaad muuqaal iigu xilatay muuqaalkan uu isbedelayaa maadaama aan aqoonin maadaama guriga aqoonin maadaama ila sheekaysanin maadaama wax ay weydiinin waan ku jeclaahaydaadu waa been waa muzayif xaqiiqi muzayif waay wuxuu rabaa intuu waqtiga ka dhumiyo inuu markay jaceelku dhamaado intuu rabay markay ka dhamaato uu ku yiraahdo raalli aada marba waxaan joogay bari boosaasan ku noolaa marka maama waxaa jirta leeyahay iga raalli aada baayo ka dhargay waxay ahayd maamada waxay ku tacalluqday rag markay dumar ka soo xagaa baxaan oo kaligood magaalada ku haraan gabdhay u baahan yihiin gabdhay guursadaan marka gabadhiina soo xagaa noqonaysaa markuu gurigi waa laga guuray waa isku diyaarsan yahay gabadh buu guursanayaa wuu meerxadayaa inta badan gurigu la degayaa wuu iska qabayaa wuu iska joogayaa gabadhi baa soo noqonayso gabadhi waa la furayaa si loo furo marka waa in la yiraahdo bas way intaas iga ka agtahay ilaa gabadhi kala imaanayso qodobkaas marka waxa way waxaan u baahanahay inay jacayl jiro anoo macallin dallaha yaa maalin waxa arday dheen macallin jacayl ma jira markaasaan ku idhaa markaasii kulligood qosleed markaasaan ku idhaa laakiin suu jira idhaha nabigeena calaysalaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay oo quraankeena ka mid inuu jacayl jiro laakiin jacaylka wuxuu ku dhisan yahay nabiga waxa la weydiiyay dadka yaa u jeceshay markaasuu Aisha markaas ali kama hadlayna raggaan ka hadlayna markaasuu aabaheed jacaylku wuxuu ku samaysmaa kalsooni dhis laba qof iswada sheekaysatay isfahamtay isguursatay nolol wadaagtay markaad dhasho oo maaqana luqaydaan ku hadlay raale oo walacdo oo daasho ayuu ninkaaga inuu ku jecel yahay in kale markaas ogaan doontaa qodobkaas markaas asagana waxaan uga gudbayaa nimaan ku baran oo aabaha aqoonin oo hooyada aqoonin oo gurigiina aqoonin hadduu kale ku jeclahay waa beentaa dheh marka misal fahmay waa beentaa dheh waxa tahay ciyaal suuq maxaa yeelay ciyaal suuqaas wax u jeclaadee nin ilaahay nin ka dhigay sida wax uma jeclaado waa ka soo gudbaya qodobka saddexaad noloshii sirta rabtay baan waxaan geynay sirta noloshii sirta rabtayna aan rabinna waxaan geynay waa kala bedelay reerku markuu reer noqdo noloshiisa dhan waa sir laga bilaabo markuu reer noqdo intuusan reer noqonin noloshiisa dhan waa banaanka hal aayadan ku koobanaya waqtiga dhacaya daraadii ilaahay subhanahu wa ta'ala quraan wuxuu ku leeyahay aakhirkeeda aayad ku socotay kunna libaasu lakum wa antum libaasu lahunna aayaddu waxay leedahay ragiina dhar baa u tihiin ayagana dhar bay idin yihiin labis bay idin yihiin waxaan markii isweydiinaynaa aayadda fasalkeeda ma aadayo waxaan aadayaa min hayth shabah maxaa ka dhaxeeya labiska iyo ragga iyo dumarka waxaa ka dhaxeeya labisku dhowr shay buu dadka u qabtaa koow u asturaa labada qofna maxaa la rabaa inay is asturaan labisku inteenaan hadda ilaahay uma keenaad dharkana laga furo waa kala carar lahayn